نبا مالن قصيغا ورمي يعني قلبي الى غريري حافظ هرغيسا باي كدعداي حافظ ان انغا دheerayn bay ka dhacday an inaga dheerayn ayay ka dhacdo bariga inaga xigtay noo dhow laakiin ayay ka dhacday waxa jiray guri ganjeel weyn oo ubad agoonihi ay ku jiraan aabahoodu dhintay oo caruur yar yar u ka tagay hantina ugama tagin gurigaas ay ku jiraan uga tagay dadkan meesha maraya gurigu qurux badanaya albaabku weynayo dadka halkan ku jira oo la oranaya laakiin maxay haystaan iyo duruuftooda dhaqaale waa maxay midna lama oranayo waxa jiray qof ay jaar yihiin ama ay iska soo horjeedaan oo iska ladan oo ogeyn xaafada xaaladeeda waxa la ii sheegay caruurta inan baa ugu roonay inanta ugu roon guriga ay jaarka yihiin markay cuntada soo daadinayaan hambadooda markay dibadda u soo saarayaan meel dhagaxa ayay saari jireen cuntada dhagax guriga ka horeeya ayay cuntada ka soo hadha saari jireen markaas oo arigu ayuu cuni jiray uu iman jiray riyihii baa bartay caruurtan yar yar ee agoonta ee halkan ku xiraysan ee inantan yar ay ugu roon tahay waxay ogaatay xaafadan ay jaarka yihiin cuntadan ay soo daadinayaan waxay samaysay marka xilliga qadadu uu gaadho albaabka ayay furi jirtay inantaa yari dhagaxii cuntada la soo saari jirayna way sii eegi jirtay albaabka u haafuran ayay taagnaan jirtay albaabka iyadoo sii eegaysa dhagaxa xaafadan ay jaarka yihiin markay cuntada soo qaadaan ama ay soo qaadaan ay dhagaxa ku shubaan ayay inantaa yar iyo riyuhu ayay u baratani jireen cuntada markaasay cuntada qaadi jirtay caruurtii ay walaalaha ahaayeen ee ka yara ayay u geyn jirtay walaalayaal waa laba qoys oo jaara waa laba qoys oo laga yaabo ehelnimo inay u dheer tahay waa laba qoys ay wada dhalasho xidhiidhisay waa laba qoys oo ehel isku ah haddana sidaa isku ah maalin maalmaha kamid ayaa inantii shaqaalaha ahayd ee raashinka dhagaxa ku shubi jirtay ayaa iyadoo noqonin oo wali albaabkeegii gelin oo xidhin ay riyii soo yaaceen tii yarayd way ka xishoonaysay qoyskan inay ogaadaan ama ay arkaan tii yarayd way adkaysan kari weyday riyii baa ugu horeeya cuntadii way soo carartay oo riyihii bay la boobtay inantii shaqaalaha ahayd baa aragtay inanta ayaa qoyska warkoogii xaafadda u sheegtay oo tidhi xaafadan maad ka warqabtiin magaaladeena markaynu eegno dadkii jaarkii way is-ilaaween isma yaqaaniin isma xaal oga waxaa jira laba qof laba guri oo jaar ah oo gidaar u dhaxeeyo ayaa midna caruurtooda laga daweeyaa xanuuno dherega laga qaado midna caruurtooda laga daweeyaa xanuuno gaajada laga qaado waa jaar labadan guri mid dab looma shido midna cuntada wixii ugu macaanaa ayaa maalin kasta hamba lagu sheegaayo ama xoolaha loo daadiyaa ama meelaha qashinka lagu qubaa ma islaamnima ma jaarnima ma ehelnima ma xigtanima intaasi waa maya laa waalfalaa xamlada duca waalid ee xajka iyo cumrada waxay bisha Ramadaan sameynayaan ka cumraysiga walaalaha doonaya in loogu cumreeyo waalidiintooda sida hooyo aabe awoowo ayeeyo iyo kuwa kale la halmaala ee waalidiinta iyadoo ay ku samaysay sanadkani qiimo dhimistii abid ugu ballaadhnayd